السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا كانال كان عصب واللي يراهدو Somali P3 Association. P3 وحي وتاغنتاي Project Program iyo Portfolio Management ay u taagantahay. Marka kanaalka waxa la yiraahdaa Somali P3 Association. Kusoo dhawaada nagala soo qayb gala waa mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد السلام دمانتين. كانال كان وحلي هذا Somali P3 Association Project Program iyo Portfolio Management ayuu ku shaqo leeyahay. Waxa loogu talagalay in uu soo bandhigo macluumaadka ku saabsan mashaariicda, barnaamijyada iyo portfoliyada, taas oo loogu talagalay in lagu horumariyo kartida iyo xirfadda maamulka. Sidaa ula socda waxay ay kobcinaysaa iskaashiga iyo xiriirka fikradaha hal abuurka leh ee bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda iyo kuwa kale ee xiiseeya. Ujeedada koowaad ee aan ka leenahay waa fududeynta isgaarsiinta, wacyigelinta iyo horumarinta waxbarashada. Waxay u shaqeysaa si madax bannaan oo aysan xiriir la lahayn hay'ad gaar ah ama urura lama lihin midnaba. Waa kanaal xor ah. Waa mahadsantihiin. السلام عليكم. waxaa halkan ila jooga Samiir oo ah khabiir project manager ah. Marka isagaan wareysanaynaa oo ka wareysanaynaa arrimaha ku saabsan projectska iyo programmeska iyo portfolio. Hay Samiir, soo dhawo. Assalamu alaikum. This week we'll be discussing what is a project. Inshallah, next week we'll continue further and discuss what is a program and what is portfolio to finish up the rest of the terminology. sida maqlaysaanba Samiir usbuucan wuxuu ka hadlayaa projectska kaliya. Usbuuca dambe iyo usbuucyada ku xigana insha Allah wuxuu ka hadli doonaa programs iyo portfolios hadii la hira. halkan waxaa ila jooga khabiir project manager ah oo Samiir la yiraahdo. Samiir waxaan rabaa inaan ka wareysto slide-ka horteena yaala oo ah project iyo program iyo portfolio. asagoo Ingiriis ku hadlaaya anna aan ka saacidayo xagga tarjumada. Samiir waa nin Soomaali ah oo khiyaar ah. Samiir, bal kusoo dhawo walaal. Assalamu alaikum. Today, first we'll be discussing what is a project. A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result. It is characterized by its defined beginning and end, specific objectives, and allocated resources. waa gartay. haddee afgiriiskaas aad ku hadashay baan isku dayaya inaan tarjumo. macnaheedu waxa weeye project ama mashruuc waxa weeye waa wax dadaal ku saabsan oo kumeel gaar ah, temporary kumeel gaar ah oo loo sameeyay si loo abuuro badeecad, product, adeeg ama service ama natiijo ama result. waxaana lagu gartaa inay leedahay bilow iyo dhammaad qeexan, ujeedooyin gaarana leh iyo agabka loo qoondeeyay ama resourceska loo qoondeeyay. Marka Samiir, aad iyo aad u mahadsan tahay. waan ogahay markii aan ka hadlayno arrinta ku saabsan project waxay caadatan ay yiraahdaan waa wax temporary ah oo maaragtay bilow leh dhammaad leh
oo ah unique product productigaas oo ah component loogu talagalay ama in wax lagu saxo ama in wax cusub ay tahay sida matalan alaab cusub ama makiinad cusub ama maaragtay software cusub waxyaalahaas oo kale ah ama service oo ama capability maaragtay macnaha awood sida business function oo kale ama qaybinta distributionka logisticska oo kale wax service ku saabsan oo la horumarinayo tan saddexaad oo ah unique result ama outcome taas oo ah maaragtay natiijo la gaaray مثلا waxaad ka dhigtaa haddaan example kaaga soo qaado research project oo loogu talagalay in ay isticmaasho aqoon si ay maaragtay usoo saarto macnaha process cusub ama hagaajin taa oo anfacahaya society-ga oo maaragtay dadka ay u leedahay marka معناها waxa weeye unique combination of one or more products oo la isku daray ama product ha ahaado ama service ha ahaado ama natiijo ha ahaado sida ama software ha ahaado ama documentation ha ahaado ama xataa help desk kuwa maaragtay telefoonada qabta oo maaragtay serviceka u suubiya shirkadaha oo kale ah marka mashruucyadu waxaa lagu qaadaa laguna suubiyaa dabaqadaha maaragtay shirkadaha ay leeyihiin ama dowladda ay leedahay ayaa lagu kala suubiya marka sida caadiga ah projectiga waxa weeye waa qof baas wadi kara oo ahaan karaya manager ama waxa ahaan karaya group ba ahaan ayay ku shaqeynayaan ayagoo ka kala imaanaya qeybaha kala duwan ee organizationka ah marka Samiir waa mahadsan tahay arrinta projectiga waan ka hadalnay bal halkaa aan ku joojino waraysigan anagoo sii wadana ayaan Samiir ka weydiiyey in uu ka warqabo meeqaad u malaynaysaa qof Soomaaliya in ay professionally certified yihiin dhinaca arrimaha ku saabsan project management ama program management ama arrimaha kale marka Samiir maaragtay arrintaa wuu dabagalay wuxuu soo ogaaday waa kana Samiir bal la hadal Assalamu alaikum. So today I have looked into Project Management Institute certification registry, and I was very surprised and also slightly disappointed that there were only 48 individuals in Somalia who had all credentials from PMI. So the next episode we will be discussing further as to why that is. haddii aan arrintaa ka hadlo waxa weeye Samiir maanta wuxuu tegay website-ka Project Management Institute wuxuuna jeegareynayay information ku saabsan dadka Soomaalida ah oo professionals-ka ah kuwaas oo uu ku tilmaamay in rekoorka uu ka helay ay tahay 48 qof oo kaliya ah wadan dhan oo inta baaxadiisa la eg tahay oo inta dowlad goboleed ah oo inta maaragtay mashaariic ka socoto waa wax lala yaabo sida uu Samiir leeyahay iyo sida rekoorka uu sheegayo marka arrintaas wadamada kale haddaad ka fiiriso ama Carabaha ha ahaadaan ama Afrikaan ha ahaadaan waxaad arkaysaa kumaan kun oo qof ayaa maaragtay project managers ah oo ama project professionals ah oo ka shaqeeya maaragtay shirkadaha wasaaradaha United Nationska iyo meel kasto marka arrintaas waanu sii dabagalaynaa haddii Ilaahay yiraahdo Samiir wuxuu iga ballan qaaday in usbuuca dambe uu soo bandhigi doono haddii Ilaahay yiraahdo all credentials-ka dhan oo Soomaalida ay leedahay oo dhinac kastaba leh wax arrimaha ku saabsan projectiga iyo programmeska iyo portfolio ah wuxuu kaloo ii sheegay arrin aan la yaabay oo uu yiri waxaa jira nin
aan saaxiibo nahay oo uu yiri waxa uu haystaa ugu yaraan 4 the professional certifications uu ka haystaa project management institute wuxuu haystaa ninkaas buu igu yiri portfolio management professional oo mid ah program management professional oo mid kale ah iyo project management professional ah iyo risk management professional ah waa nin khabiira ninka sidoo ii sheegay insha Allah tafaasiishaasna waxaanu ka hadli doonaa hadii la yiraahdo sida uu Samiir igu wargeliyay usbuuca dambe hadii la yiraahdo waa mahadsantihiin